waan ka xumahay inaan maanta ku geeriyoodo sariirtayda si lamida sida awrka ama ratigu u geeriyoodo oo waxaan jeclaan lahaa inaan Ilaahay la kulmo anigoo shahiid ah. Erayadaas waxay ka mid ahaayeen hadalladii ugu dambeeyay ee laga qabto geesi ka mid ah geesiyaashii Islaamka, seef ka mid ah seefihii sharafta iyo guulaha u soo hooyay diinteena Islaamka, ilaa markii dambe looga magac daray seeftii Alle. Waa geesigii Islaamka سيف الله المسلول خالد بن وليد بن مغيرة. إلهي كرالي النقضي وأن ما أنت الروا إنان إذا لو ذاقو قيب يرأو كميدا تاريخ نولاليد كيسي هذا الذي تاريخ ذاقالي إلا قبتي مركي وسكرات قوسو حاضري مقاعيقو وهارون محمود برنامجكو وحقدون داود يالكسو الدوادة موضوعين مانتا جيسيجي saxaabigii weynaa Khalid ibn Walid ibn Mughira waxa uu dhashay sanadkii 584 taariikhda miilaadiga waxaana ka dhashay qabiilkii reer Bani Maqsuum oo kamid ahaa qabiiladii ugu waaweynaa jasiiradda Carabta iyo magaalada Makka. reer Bani Maqsuum oo ah qabiilka uu ka dhashay Khalid ayaa maqaam sare iyo sharaf ku dhaxal lahaa Quraysh xilligii jaahiliyada. Khalid abihi ayaa ahaa Cabdushamis Walid ibn Mughira oo isaguna ahaa nin magac iyo sharaf ku dhaxal lahaa qabiilkiisii reer Bani Maqsuum iyo Quraysh oo idil. waxa uuna ahaa nin xigmad badan kana mid ahaa garyaqaanadii Quraysh inkastoo ka mid ahaa raggii sida aadka u dhibay nabigeena Maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa Allah yeelay. Khalid laftiisa ayaa ka hor islaamidiisii ka mid ahaa ragga sida aadka u nabcaa diinta Islaamka iyo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam shakhsi ahaan isagoo ku dadaali jiray in la cirib tiro diinta Islaamka. waxa uuna Khalid bin Walid ka qayb qaatay dhammaan dagaaladii dhexmaray muslimiinta iyo mushrikiintii Quraysh marka laga reebo dagaalkii Badr oo uu ku maqnaa cariga Shaam. waxa uu doorka ugu weyn lahaa Khalid bin Walid jabkii ciidamada Islaamka soo gaaray dagaalkii maalintii Uhud. Khalid ayaa sidoo kale ka mid ahaa raggii aadka u firfircoonaa ee Madiina soo weeraray dagaalkii Axsaab ama Qandaq. nacaybkii uu Islaamka u qabay Khalid awgii ka hor islaamidiisa magaalada Makka ayuu iskaga baxay markii asxaabtii rasuulka Ilaahay ka raali noqdo dhammaantood ay magaalada Makka gudaha u soo galeen isagoo diidanaa inuu arko Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa oo gudaha u soo galaya magaalada Makka. ninkii Islaamka u qabay nacaybka inta leeg ayaa marqore isku bedelay geesi ka mid ah geesiyaashii Islaamka, seef ka mid ah seefihii sharafta iyo guulaha u soo hooyay diinteena macaani Islaamka, ilaa markii dambe Khalid loogu magac darayba seeftii Ilaahay. Khalid bin Walid ayaa ku hanuunay diinta Islaamka ee sharafta leh bishii Safar sanadkii 8aad ee Hijriyada 6 bilood ka hor furashadii Makka kuna beegneed ka hor 2 bilood dagaalkii Mu'ta. waxaana islaamnimadiisii isaga iyo nabiga u kala dab qaadayay walaalkiis Walid bin Walid. nacaybkii uu Islaamka u qabay Khalid ayaa isku bedelay jacayl. muslimiintii ayaa ku farxay Islaamka Khalid. wixii markaas ka dambeeyay Khalid bin Walid Allah ka raali noqdee wuxuu ka mid ahaa geesiyaashii Islaamka. furitaankii Makka kadib Khalid ayaa hoggaanka u qabtay ciidamo dhowr ah oo uu nabigu u kala diray dhulalkii Carabta si loo baabi'iyo sanamyadii ay caabudi jireen. waxa uuna Khalid gacantiisa ku dumiyay sanamkii ugu weynaa ee Quraysh ay caabudi jireen ee Uzza ee ku yaalay meesha la oran jiray Barnudaqla. Khalid bin Walid ayaa gacan weyn ka geystay dagaaladii lala galay kuwii ka baxay diinta Islaamka markii uu nabigu geeriyooday isagoo ka taqallusay hoggaano badan oo Islaamka lid ku ahaa waqtigaas soo baxay sida ninkii la oran jiray Musaylamatul Kadhaab. waxa uu seeftiisa Islaamka ugu soo celiyay qabiilo badan oo diiday sakada iclaamiyana in ay ka baxeen diinteena Islaamka waqtigii Abubakar as-Siddiq. Khalid ayaa ahaa hogaamiyihii furaha u ahaa in Islaamku uu gacanta ku dhigo dhulalkii Ciraaq, Furus, Shaam iyo Room isagoo jiray dhufaysyo badan oo ay adkeed in laga gudbo, hase yeeshee lagu dardaray qidad caskari ah oo uu isagu hindisay. ugu dambayn geesigii Islaamka Khalid bin Walid ibn Mughira seeftii Ilaahay 18 bishii Ramadaan sanadkii 22aad ee Hijriyada kuna beegnayd 642 taariikhda miilaadiga ayuu geeriyooday isagoo 58 sano jir ah. waxay taariikhyahanadu sheegaan markii uu sakaraadku u soo xaadiray
inuu aad u ilmeeyey oo murugooday Khaalid, isagoo ka xumaa inuu sariirtiisa ku geeriyoodo, jeclaana inuu Ilaahay la kulmo isagoo shahiid ah. Waxaana hadalladii ugu dambeeyey ee laga qabtay ka mid ahaa: waxaan joogay dagaalka iyo dagaalka, waxaan xaadiray macrikada iyo macrikada, korkayga meel fiyow ma lahan, oo dhammaan waxaa ku yaala dhaawacyo. Maantana waxaan ku geeriyoonayaa sariirtayda si la mida sida awrku uu u geeriyoodo.